Boqortooyada Midowga UK waxay noqotay quwaddii ugu horreysay ee reer galbeed ah oo Ukraine siisa taangiyada dagaalka iyadoo Moscow ay sii xoojisay weerarada ka dhacaya dalka oo dhan. Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa Sabtidii ballan qaaday inuu taangiyada iyo habab madaafiic ah siin doono Ukraine iyadoo ay sii kordhayaan weerarada gantaallada ee Ruushku ku hayo caasimadda Ukraine iyo magaalooyinka kale. Ballanqaadka ayaa la sameeyay mar ay wada hadleen Sunak iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky. Boqortooyada Midowga UK waxay keeni doontaa 14 Challenger 2 taangiyada loo yaqaan toddobaadka soo socda, oo ay ku xigi doonaan ilaa 30 qori oo AS-90 ah. Ingiriisku waxa uu bilaabi doonaa tababaridda ciidamada qalabka sida ee Ukraine si ay u isticmaalaan taangiyada iyo qoryaha maalmaha soo socda, taasoo qayb ka ah dadaalka ballaaran ee UK oo lagu arkay kumanaan ciidamo Ukrainiyiin ah oo UK lagu tababarayo 6dii bilood ee la soo dhaafay, ayay tiri wasaaradda difaaca. Bayaan afhayeen u hadlay Downing Street ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen baahida loo qabo in xilligan la qabsado kadib markii guulihii Ukraine ay dib u celiyeen ciidamada Ruushka. Ukraine ayaa in muddo ah raadinaysay in la keeno taangiyada ka culus oo ay ku jiraan US Abrams iyo German Leopard 2, balse madaxda reer galbeedka ayaa ka caga jiiday in la keeno tallaabadan. UK waa awoodda reer galbeedka ee ugu horreysa ee Kiev siisa taangiyada dagaalka ee muhiimka ah. Sunak, ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska, wuxuu aaminsan yahay in dagaalka dheer ee taagan uu u adeego kaliya dhamaadka Ruushka. Downing Street ayaa yidhi taasi waa sababta isaga iyo wasiirada ay ula hadli doonaan xulafada adduunka oo dhan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda si ay u xoojiyaan cadaadiska Putin oo ay u sugaan mustaqbalka wanaagsan ee dalka Ukraine. Zelensky wuxuu ugu mahadceliyay Sunak Twitter-ka go'aamada aan kaliya nagu xoojin doonin goobta dagaalka, laakiin sidoo kale waxay u dirayaan calaamad sax ah asxaabta kale. Safaaradda Ruushka ee UK ayaa si degdeg ah uga jawaabtay hadalkan, waxayna tiri in taangiyada la keeno aagga colaadda fogaanshaha in Ukraine ayaa sheegaysa in Ruushku uu soo qaaday weerar gantaalo ah oo weyn isagoo ku burburiyay guri dabaq ah oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaala magaalada Dnipro, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 21 qof isla markaana duqeeyay xarumaha tamarta muhiimka ah. Iyadoo dagaalku socdo maalintii 320-aad, taliska sare ee militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu qaaday 3 weerar oo cirka ah, 57 weerar oo gantaalo ah, iyo 69 weerar oo loo adeegsaday gantaallada riddada dheer ee loo yaqaan Salva system. Shalay waxaa korortay tirada dadka ku dhintay weerarka uu Ruushku ku qaaday guriga Dnipro. Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay, 73 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gantaal laga soo tuuray dalka Ruushka uu ku dhacay dhismo ku yaala magaalada Dnipro ee dalka Ukraine, xilli ay socdaan mowjadaha waaweyn oo weeraro ah oo sababay koronto la'aan iyo dagaal guud ahaan dalka ay dagaaladu aafeeyeen, sida uu sheegay madaxa golaha ee Ukraine Mykhailo Lukashevuk. Wuxuu intaa ku daray in 40 qof ay la tacaalayaan sidii ay hadda uga soo saari lahaayeen dhulka hoostiisa. Sidoo kale wuxuu raaciyay weerarada inay burburiyeen 72 guri oo ku yaala magaalada Kiev iyo magaalada Dnipro iyo magaalooyin kale ee dalkaas, ayuu sheegay. Daawadayaal, sidoo kale warka waxaa ku maqli doontaan madaxweynaha dowladda Russia oo maanta saxaafadda la hadlay madaxweyne Putin. Waxa uu ku ammaanay firfircooni togan ee weerarka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bogaadiyay dhawaaqa wanaagsan ee weerarka Ukraine kadib markii Moscow ay sheegtay inay guul ka gaartay magaalada safka hore ee Soledar, taasoo Kiev ay beenisay. Waxaa jira firfircooni togan, wax walba waxay ku
horumarayaan sida qorshuhu yahay, ayuu yidhi madaxweyne Putin, isagoo ka jawaabayay su'aalahaas ay weydiinayeen saxafiyiinta oo ku saabsan howlgalka gaarka ah ee Solidar. Waxaan rajeynayaa in dagaalyahanadeennu ay nagu farxin gelin doonaan in ka badan mar kale, ayuu raaciyay. Taangiyada gaari doona Ukraine sanadkan ama sanadka soo socda ee uu sameeyo dalka Jarmalka. Afhayeen u hadlay warshadda soo saarta ee taangiyada dowladda Jarmalka wuxuu kaliya keeni karaa taangiyada dagaalka ee Leopard 2 loo yaqaan ee la dayactiray ee Ukraine sanadka 2024 sida ugu dhaqsaha badan. Madaxa fulinta ayaa yidhi dayactirka haamaha ay keedka ku leedahay waxa ay ku kacayaan dhowr boqol oo milyan oo euro. Shirkadduna ma bilaabin karto inay samayso ka hor inta aanan amarka la xaqiijin. Afhayeenka oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi maamulaha guud ee shirkadda ayaa u sheegay wargeyska Bild, xitaa haddii go'aanka la gaaro berri si loogu oggolaado inaan u dirno taangiyadeena Leopard Kiev, gaarsiinta waxay qaadan doontaa ilaa horaanta sanadka soo socda, ayuu hadalkiisa ku daray. Safiirka Ukraine u fadhiya dalka Jarmalka Olesiko Mikhail ayaa ku booriyay dowladda Bahrain inay si degdeg ah u siiso waddankeeda taangiyada la calmaday ee Leopard 2 ka hor wadaxaajoodka xulafada reer galbeedka ee ku saabsan keenista hubka Jarmalka. Taangiyada Jarmalku waa lama huraan u ah badbaadada, ayuu u sheegay DPA wareysi maanta laga qaaday safiirka. Waxaan haysanaa waqti aad u yar oo wada hadal ah, waxaana ka filaynaa xulafadayada inay fahmaan taas oo ay u dhaqmaan si habboon. 20 Janaayo, wasiirada difaaca ee xulafada reer galbeedka ee Ukraine ayaa ku kulmi doona saldhigga militariga ee ugu weyn ee ku yaala dalka Jarmalka ee loo yaqaan magaciisa US Ramsed ee galbeedka Jarmalka si ay uga wada hadlaan taageero militari oo dheeri ah oo la xiriirta dagaalka ka dhanka ah Ruushka. Britain ayaa ahayd wadankii ugu horreeyay ee ku dhawaaqay inuu siin doono ciidamada qalabka sida ee Ukraine taangiyada dagaalka ay sameeyaan reer galbeedka, kuwaasoo gaaraya 14 taangi noocooda loo yaqaan Challenger 2. Haddana dagaalka waxaa sidoo kale ku dhawaaqay inay bixin doonaan hub dheeri ah. Dowladaha Poland iyo Finland waxay u diyaar garoobayaan inay keenaan taangiyada la calmaday ee Leopard 2 ee uu sameeyo dowladda Jarmalka, waxayna qayb ka yihiin Finland iyo Poland isbahaysiga Yurub. Dowladda Jarmalka weli mowqif kama ay qaadan arrinkan. Safiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in taangiyada Leopard la'aanteed aysan suurtogal ahayn in dib u qabsasho dheeraad ah oo lagu sameeyo dhulalka uu Ruushku qabsaday. Waxa uu si cad u sheegay in dib u dhac kale uu galaafan doono nolosha dad rayid oo fara badan iyo ciidamo kale oo reer Ukraine ah. Safiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku celceliyay in Ukraine ay la dagaalamayso dagaal wakiilnimo oo ay ka wakiil tahay dhammaan xulafadeeda. Ma jirto cid kale oo la dagaalamaysa Ruushka, laakiin dadka reer Ukrainiyiinta ah ayaa iyagu isdifaacaya, ayuu hadalkiisa sii watay safiirka oo wareysi siinayay wargeyska laga leeyahay dalka Jarmalka loo yaqaan DPA. Ruushku wuxuu wadaa dagaal ka dhan ah Ukraine oo keliya, laakiin ka dhan ah Yurub iyo dhammaan ilbaxnimada dunida iyo dimuqraadiyadda. Ankara waxay ku baaqaysaa xabad joojin maxalli ah ee Ukraine ka dhacda. Waxa uu Ruushku rabo waa in loo ixtiraamo ciyaaryahan weyn iyo in laga fogeeyo in NATO ay ku jirto deyrkooda. Ruushka ayaa xiiseynaya naqshad cusub oo caalami ah si loogu damaanad qaado inaysan dowladaha xubnaha ka ah NATO ee dalka Ukraine soo degin. Daawadayaal, dagaalkii dalka Ukraine wuxuu kaloo yeeshay weji cusub. Xaaladdu waa isbedeshay. Ciidamadii Ukrainiyiinta taangiyadu haysteen waa dhaqaajin waayay qabow daraaddiis, waa istaarmi waayay, waa in la sugaa ilaa 20 minit 30 daqiiqo kabacdi ayuu dagaalka geli karaa. Sidaas oo tahay Ruushku wuxuu dardar geliyay in hub cusub iyo ciidan casri uu keeno goobihii dagaalka. Hadda dowladihii reer galbeedka waxay leeyihiin ciidanka Ukraine waa lasoo jebiyey. Haddii ayna geen hubkayga casriga, xaaladdu waa xumaan doontaa oo Ruushku wuxuu qabsan doonaa Kiev. Daawadayaal, warka ku xiga ayaan idiin soo diyaarin doonaa maalinka beriya. Waana mahadsantihiin.